ninkaan isla waa ugu weyn yahay ugu fiican yahay waa ugu mataqaanaa akhlaaq badnaayo markii de barnaamijka la waday annagaba runtii markaan dowladda ku jirnay ugu imaanay xamar mataqaanaa wax badan aanu mataqaanaa ka wada hadalnay ay nala fadhiyeen noo sheegeen aan ka wada qaadan maanta waa sunni ilaahay hadduu suka keeno ilaah isku kaahay daray Khalid bin Walid asxaabtii ka soo mid noqdo nabiga sallallahu alayhi wasallam gacan u noqday hadaan aan sun noqonay maanta waxay ahayd in lagu amaano lagu sharfo leeyahay alxamdulillah suka keenay maanta aan meel wanaagsan ka soo baxno meel wanaagsan wax ka wada qabano inta yar noo dhimanna aan dhameystirano aniga taas arrinta ilaahay boonay doon maray arrinta ciidamada oo shisheeye dawladda federaalka kumeelgaarka Soomaaliya ay sheegtay in dalka ay imaanayaan si ay u sugaan amniga dalka gaar ahaan garoomada iyo dekedaha halkee ay maraysaa sida aan ka warqabno ilaa iyo hadda waxaa joogo dhowr wadan sida wadamada Uganda iyo Burundi wadamadii kale ee ballan qaaday ciidamada shisheeye arrintaas halkee ay maraysaa hadda kullu sida madaxweynaha sheegay mar barnaamij kala sheegay ciidan hadda waa jooga oo diwaan amisom oo Burundi iyo Rwanda ay joogo ayaga bada hadda mataqaana ilaaliya dekadii iyo aeroportkii iyo asana ilaaliya arrinta ayada waa jeclaa xawaair waxa ka taabto iraad annaga muqtasiyada wada muslimiin nahay mu'miniin nahay waxaana la faray inaan balanta ilaalino shalay markaan mucaaradka ahayn oo aanu ka joogno dalka dibadda ee dawladii markaa jirtay ee Nuurcadda iyo mataqaana madaxda ka ahayeen balanta aan galay waxa kamid ahayd war Soomaaliya maanta dhibaato badan baa haysata ciidamo dariska ayaa mataqaana joogo waxaan u baahanahay bal ciidamada dariska dalkooda lagu celiyo ciidamada kale aan dariska ahayn ee dalka dariska nalaana aan ku jirina ha u joogaan hawshii ay adduunyada u soo dirtay balan aan galnay bay ahayd markaan galaynayna odaya dhaqameedyada Soomaaliyeed oo nala qaateen culimada diinka nala qaateen qof ka soo nala qaatay waxa la yiri war laba dara mid doora la yiri tan hadda bal dhibka nagu haysa ummadii mataqaana ay ka wada cabanayaan hal laga bixiyo meesha kuwana wixii markaa ummadda Soomaaliyeed ka yeeri doonto markaan hadhow aan salka dhigano ilaa anagu tadaata ku sheego labada waran ee salka mid nooga taagan mid isha nooga taagan teemada horta bal salka naga bixiyo hadii ciidamadii marka naga bixeen salkii hada iska dhaawac ah ayaan ku fadhinaa oo waad garanaysaa dadkii waa burburay wadii waa wada qaxeen wixii dib loo soo celiyo la keeno la asturo la sugo nabadii la keeno ay horta shaqada ugu horeyso ummadda waa sugaysaa tan isha waxa u baahan tahay meesha wabiya ku jira waxa u baahan tahay tartiib ka bixin dhilin tartiib oo saarid sayna bi ish dad ka bixinaysa ay ish wanaagsanoo mataqaana sayil kana ku nabad xayira ku xigta in warka uga bixisid ayaa habboon warka kama bixin kartid kama siibi kartid inta ka sii biyo dhama soo daana ish waa dhacaysa marka waxay nala habboon waxa way in ciidamada bar hadda noo jooga ee wadamada dariska ee loo keenay inay ilaaliyaan goobaha dawladda hadda aysan awood badan u lahayn inay ilaaliso sida dekada aeroportka institutions dalka qayb kamid ah jidadka qaarkood waa weyn hadda Soomaaliya ka bixino markii ciidamada Ethiopia ay baxeen maxaa ka dhacay goobihii ay joogeen waa lagu qamaamay waa la wada qabsaday waa la wada dooday waa la isku diyaaray madaxweyne Sheekh Sharif Khayr Allah si asaga ayaa u ahaa ninka yiri maya uma aanan imaan meeshan in aanu dagaal ku galno waxaan u nimid dawlad waxaan nahay nabadeed dawlad waxaan nahay dib u heshiisiin waxaan nahay dawlad u tiro dadkeeda iyo dadka diinteeda dadkeeda inay dar yeesho sababta qofka sameeyo joogo hal ugu nabadeeyo haddii la yiraahdo ciidamada Amazon maanta dhaqaaqa dekada ma waasayna furnaanayso maya arbagu furnaana umadu ku soo degaysa malaga xajina malaga umrana malagu sida loogu mataqaan amal fara malagu amal fara maya way ayadoo hadda furano nabadda qabto shacabka ka soo degay ayaan baan walba leeyahay mataqaana gowri ka shimada dhagax lagu soo tuuraayo baan walba rocket ku soo dhacaya marka ana wax ilaha boon talada ay tahay ummadda in loo sheegay tahay ciidamadan way baxayaan dalka way ka tagayaan marka annaga aan isku filaasho ka gaaro arrimaha nabadgelyada dadka dalka iyo diintayada ciidanka waa la dhisay hadda bishaarka waa loo bilaabay meel fiican buu marayaa dadka iyo dalkayana waa iskaga filanay wax walba wax yar baa noo harsan intaan noo harsanna shacabka waxaan rajaynaa insha allahu tacaala inay nala gartaan nala yegleelaan nala asturaan nala habeeyaan markay nala habeeyaanna aan raanahaye annaga isku filanay maanta xamar kismaayo raskamboni halkan ilaa iyo luuq dooro bulaxaw halkan ilaa iyo mataqaana eelbadisa ku dhooble iyo mataqaana zoonkaas intan ilaa iyo galmudug waa joognaa waa fiican wax dhibaato haba yaraato ka jirna malaha marka walaalayaal waa maasantiin nabaday waxay idin rajaynaa mataqaana guul inaan dhaxno markii annaga waxay meel naga joogaan ma aha bay nabadaba joogaan daafeed ma joogaan xamar lambar afka ma joogaan waxay joogaan airportka waxay joogaan dekada waxay joogaan institutionska la geeyey
حافي على المين ذاك إني كرتان والعيدما العيدما ويمي ذاك يديد إلا درنا ما الله كان إلى هذا جوابها الدولة أيضا حتى تمرتوا هنا إن أي معمشوا الشعب كهول جل يعني الشعب أباهين إن الحوارات يقرأ سجود النظام كون كلا سودجان أيضا يكدونان كلا سودجان أيربورد أنت هذا ما الله لا بيكره وهذا بعيرة أجنبي عيرة أجنبي رواه كل أنت بالمسلمين وارد كل كان دقيم لكن أجنبي وين ورن وما بعرف ذلك أنا ما تنعيد أجنبي جو رن لكن سير كانوا كل وقت كان حيانا كل حاجة سيدي أنا أسوق بسا توبركي الله صبيان إذا اللي يقول بسا نبدأ جانا أسرة يمكن بحاجة عيرة كبحان هكمل نقطة هرت أصير عيرة ذلك هكمل نقطة ذلك نبدأ هذنا هكمل نقطة ما واحد قرنك إن نبدأ هذنا أسا بريميس كسوف فريقنا هاي مركب ورانا سجل ورانا شقير هذا وسكوينت عند قناي وعن نقص على مركب يسكب بحال سيوم أنت متقنع وقنعان أنا مركب علينا يس وهم ما واحد لو بقى ما ممكن مجر وأنا طبعا ماشي ولا شقير سنة وتجون ومتقنع وتفرن مع السلامة مع السلامة أيوة فرحسن وقصنا أنا الوحيد اللي ذيك واقبتين وما دون أبريشيشن بيدكوها إيه ذيك بحال لكن أنا ترى هي بحال محاجر أنا وصل صعب ماشي أنا قبصته ما بحال إنه ما بحال وجوها بركي هذه ده وصل صعبتنا قبصتي لو بتلقى لنا قبص الله تلقى وما ده السيرفيس لو صار ماشي dhawaan waxaa jirtay in hub fara badan oo si sharci darro ah ugu soo dhigay qaar ka tirsan garoomada dalka Soomaaliya iyadoo arintaasna uu eedeyn u soo jeediyay wasiirka amniga qaranka ee Soomaaliya hubkaas oo sida la sheegay ka yimid dhinacaas iyo dawladda Eritrea sidoo kale waxaa jirtay madaxweynaha dalka Eritrea Siyaas Afwerki asagana waxa uu sheegay ama uu ku sifeeyay dawladda midnimada qaran ee Soomaaliya in ay la mid tahay sida maamulada ka jira Puntland iyo Somaliland arintaas ayadana maxaad ka dhigay جواب ما بركي أبالك لو قال بقدم Soomaaliya أول بدن بيجي كل هذا هاي أنا دولة تريه كله حكم الشيء لا الشعب غير تريه حكم الشيء قلنا وحييه ما كسفيننا وحين نقول رقمنا نقول رقمنا أنا أقول لسه جوجني وأصدقائنا نبغى تقنيات على بعضه هذا يري كليته أفكي اللي قفل هاي وحي اللي قفل هاي منه وحي كفلا وحي اللي قشة عينا معك شيء وزير كأمنية وشغل سيتعرف عينا وحي سياسة أنا كلت وزارة وفافت هي رتاية كثير يعني واتهاي أدباد وما تنتهي كاسي وحوها بروفيسور عبد الرحمن آدم إبي رئيس الوزراء كحرينك أحنا وزيرك خيراتك إيو كلوميسيغا خيراتك بدا إيو كلوميسيغا نراده وإيقو رمي مقالة دهيش حارونتا ودن نذرلاند تاني انتان ديب دنبه برنامج كان او كلاه عن كل مدونو وبهذا تي في يونيفرسال ودن نذرلاند او إذا كاغا تيجيسي سيداس إيو نبتقليو hadana kadad kuraysa